السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلام صحافتي غارقة سؤال هذا ميل بوجوكتين بو وولاش نسام عبدي وإذن الله مركلة يا مقال عسب كسؤال هذا مقال كأن مانتي يا ما تبحيني وذا فضلا جنال كي داكو عسب سبسكرايب إيسارة تهرنا لجوتي كومنت لايك شير انت بنا عاوي سو نقض ونعس الأصحافتي غارقة سؤال هذا ميل بوجوكتين بشكاير معانا عاو قرح إنك قصيناي sheekada ma aha mid meel ka soo xigtay ma aha mid la iiga sheekeeyay waa sheeko aan goob joog u ahaa asxaabtayda qaaliga hadda ka hor anagoo markaas Soomaali joognay waxaa jirtay reer adris ahayn reerka adriska ahayn waxa uu joogtay gabar yar oo joogtay oo markaas soo kacday inaan adiga ilmahaas 15 ilaa 16 u dhaxeeyay ahayd gabadhii markaa waxaa soo dootay ninaa ka helay ninkii markuu ka helay oo maxaan ku dhahaaytay oo ka helay usoo bandhigtay sheeku usoo bandhigtay ninkaas markaas nin weyn waaye adiga raggaas 40 ama gaare ama gaadaayo waaye ayadana waa cunug yar oo ilaa 16 ilaa 15 u dhaxaysa gabadha ninka guur usoo bandhigay guurka markuu usoo bandhigay waxay dhahday adeero ani adiga isku size ma nihiin waxaan ku dhahaaytay ma isla jaan qaadi karna amal waa fahmi kartaa gabadha 16 sano ama 15 sano jirto oo intaas wiil oo dhalinyaro ahoo magaalada joogta ay isha u wada taagayaan wala sheekaysanayaan la saxaasaawayaan cunug waxay aad iyo aad u akhlaaq badan oo ida badan dhowrsan akhlaaq leh oo wanaagsan ahayd oo aad u afgaaban oo wanaagsan ahayd inta qof bili aadan wanaagsan ahayd afgaaban xishmad badan ilaahay amarka ninkan waa uga dhigtay aad iyo aad uga helay way uga dhigtay wuxuu dhahay ilaabo maxaan ku dhahay gabadha inay hela jirto ayadi markay ay diiday oo ay dhahday ani adag waa kala weynahay ma haasaabi karna ay dhahday oo xagga ka wareegay wuxuu u tagay familkeedu markuu u tagay ay wuxuu dhahay gabadhan rabaa sidii gabar loo doonan jiray ay u doontay oo ugu dhigtay familkii waxay dhaheen gabadhaanito anaga ma bixin karno ma afduubi karno sidaas darteed u tag adiga la soo sheekeyso heshiiya adiga ayada heshiiya marka adiga ayada heshiisiin oo wax soo wada meel dhigtiin markaas anaga waan kugu dari karnaa oo waa isu kiindeyn karnaa laakiin ma afduubi karno ilaa ninkan lagu siiyay hawshan laguma dhameyn karo dabcan reer aad wanaagsan oo ahaa maasha Allah waxa dhihi karaa waa taqaan Soomaali gabdhaha waa la afduuba dhaqaale yar la siistaa inkastoo ninkaasna nin dhaqaale haysta oo ahaa laakiin familka gabadha ka dhalatay laftirkiisa family baahan ma ahayn family dhaqaale haysto iska fiican bay ahaayeen maasha Allah gabadhii ninkii markii reerkiina uu usoo dayriyo la dhahay gabadha la sheekeyso aydiina ay u dayriso ay dhahday ani adiga iskuulood ma nihiin ma sheekeysan karno ninkii forja qabatay gabadhii wax maaragtay qiil oo ka waayay forja qabatay asagana markaas ayada gabadhan aad u uga helay wuu jeclaaday waana uu ka helay inuu guursadana wuu rabaa oo markaas ayada inuu guursado rabaa oo guurbu diyaar u yahay oo inuu guursado diyaar u yahay ninkii forjadii iyo ciilkii wuxuu kula dhacay gabadha gabar aan ka dheereen oo daris la ahayd cid daris la ahaa xogaa iska danyar ahayd masaakiin markaan ku leeyahay dadka dabcan ummadana masaakiin waaye laakiin reer iska danyar gabadhooda oo xogaa inan weyn ayuu ku kor dhacay forjadii kula dhacay reerkii u tagay gabadhii ka doontay lacag cidi geeyay gabadhii wuu u fariistay maasha Allah hadalba lagama gelin hore laga siiyay ayadana maadaama guurka uu ka soo daho inan weyn ay ahayd gabadhii uu doonto dambe waa lagu daray oo ayadana way aqbasho hore ka aqbashay laakiin meesha sayto haasaawo ma yaalo jacayl ma yaalo sheeko ma taal isfahan ma yaalo ninkaana just forja waday gabadhana gabar guurka ka daahday ahaydoo Janice ay u arkaysay ninka xoogaa lacagta loo iska dhaqaalaysan maadaama uu soo doontay Janice ay u arkaysay asaguna forju iska rogaayo ilaa gabar baa soo diiday forju iska gadinaay ilaahay amarkiisa si degdeg uu ku guursaday waa lagu meheriyay markii lagu daray oo si degdeg uu ku guursaday waxa loo dhigan ku dhahay arooska adduunka maasha Allah wasana u dhextaagna arooska adduunka loo dhigay kala kacsan hanti adduunka wax lagu qalaan ku dhahay isida looga soo qayb galay wallahi inaba caadi ma ahayn guriga u sharaxay arooska adduunka u dhigay waa loo ciyaaray habeenkii aqalgalka oo ninkii naagta ay isku tagayeen guriga la isuga baxay oo inta la isu hooyay la isaga baxay aroos laguma raaga la yiri oo ninkii uu xabada u magayba wuxuu ugu waca gabadha uu jeclaa oo loo soo diiday magaceedii uu waca heblaayo oo dheh waxa ka maleynayay naag kale magaceedu loogu wacay oo iska dareemi kartaa hada xaajigaaga duu ku dhaho adoo caasho lagu yaado aduu ku dhacaday oo ku dhawa iska dareemi kartaa cadarta inta ka keentay xagee joogta wala sheekaysta miya waa gabaya bilaaway maano isdareemi waa is ogna anaga haweenana ma gabadhi markuu habeenkiiba ninku ugu wacay
gabadhi kale magaceedii because ninkan gabadhaas uu jeclaay aad buu maanta uga helay way qancisay laakiin way diiday maahano laakiin aad u jecel yahay still weli wuu jecel yahay laakiin gabadhan forjadii gabadhaas ay kusoo daadisay uu isaga gedinaya jacdi iska gedinaya bas adiga meeshii habeenkii isku dhacaa ka dhashay maxaa wanaagta magaceeda igu waceyso maxaa dhacay isku dhacaa meeshii ka dhashay wuxuu dhahay maya waxaas caadi waaye maartay hadalka afka iga soo dafay waxyaabo noocaas ku qanciyay adigu ilaahay amarkiisa reerkii toddobadiiba ayagoo ku jira waa isku dhaceenba ninkii naagta isu soo guursaday toddobada ayagoo ku jira waa isku dhaceenba ilaahay amarkiisa warkiiba isla markiiba hadal sheedaana sheegaa maqli jiray hadalkii markiiba magaalada laga maqlay hebel iyo heblaa waa isku dhacay reerka arooska hadda isguursada ma isku dhacay macquul ma ah hadalkii markiiba magaaladooba galaba bas ilaahay amarkiisa gabadha isla weegeewa boosteeda qaatay gurigooday aaday asna gurigiisu iska seexanayo bas ilaahay amarkiisa gabadha hooyadeeda u tagtay hooyada markay u tagtay waxay tiri hooye hee ninka ay guursaday hee markuu afka kala qaadaba wuxuu igu wacayaa naagtaas magaceeda gabadhaas gabadhu jeclaa waaye oo loo diidayo oo doontay waaye see wuxuu jiraan dhahda maamadii maya hooy saas waaye dhahda ninkaas ma rabo umana noqonayo bas waxay dhahda ninkaas wax dareen iyo wax jecel maba ii haayaba mag ku afka kala qaadana magaca naagtaas igu wacayaa marka waxay tiri hooye waxaas wax loo dul qaadan kara maaha maamadii warkii markii loo sheegay go-aanayba gaartaba waxay iska soo jartaba ninkaneeto nin lacag la waaye nin wanaagsan waaye inuu naga fakado ma rabno hadduu naga fakado oo naagtaas oo u laabto cidaas uu aadana dee maaragtay ninkaaseeto nin aan quuri karna iyo nin naga fakan kara midna ma ahane waa inaan gabadhaas aan qaarajino camal oo aan magaceeda dilno oo magaca ay magaalada ku leedahay aan dilno oo maxaan ku dhahay taa magac xumo magaalada u gelino oo aan dhibaateena waaye dhah maamadii waxay dhahday gabadhii ninku uu qabay iyo gabar kaloo la alarto walaalo ah waxay dhahday gabadhan hala shirqoolo hala kaxeeyo magaalada ha laga bixiyo maxaan ku dhahay meelahaaseeto dhalinyaro iyo ciyaar suuq ha loogu diyaariyo magaceeda ha lagu tunto gabadhaas ama hala kufsado ama hala dilo ama adu si un ha loo gale gabadhaas magaceeda hala dilo si uu ninkaas markuu maqlay gabadhaas magaceeda inuu dhintay oo la farxumeeyey ama la dhibaateeyey uu u naco oo magaceedu suuqa uga baxo gabadhaas ay u qayma dhacdo ilaahay amarkiisa gabadhii u imaadeen labadii gabdhood waxay dhaheen heblaay hee aroosaa jiro aroos kala kacsan ah inaba caadi ahayn jiray dhaheen marka ilaaba arooskaasayta waa inaad noo raacdo waan lagaa wacay arooskaas noo raac maba ka hari kartid ba arooskaas inaba caadi ma ahan waa iska taqaan dhalinyarada way aroos jecel yihiin waa iska xalfado jecel yihiin waa iska sheeko jecel yihiin hayay dhahda ayadiina ilaahay amarkiisa gabadhan familkeeda aroosi aadowga iyo meel aadowga aad uma jeclaan jirin gabadhan yarta ah dukaanay gedi jirtay waa dhuumatay waxay dhahday maxaan ku dhahay waan sii soconayaahe oo xoogaa magaaladan ka baxaaya magaalada waa laga baxaaya safaraa la aada baaburaa la raacaya meesha arooska loo aada meel fog waay magaaladan ka baxaaya maxaan ku dhahay markaa magaalada ka baxo halkaas baabuurka iga daba keeno markaas aan israaceynaa naagaha marka waxay ku dashteen gabadhan in la dilo la qaarajiyo la farxumeeyo rag kufsada loo geeyo la dhibaateeya ku tarteen gabadhan laakiin xabad ma oga daacad waaye maskiin waa cunug yarna waay waana daacad gabadha ayadoo inta magaaladii ka baxday sii socoto naagihii kaletana ay kasii daba socdaan laakiin la kala dambeeyo adigu iska siyaasad ay tahay oo la kala dambeeyo yaan laisku keen arkin oo la kala reebina xoogaa naga sii hormar ay tahay ba waxaa ka hor imaatay maamada markaas waxay dhadana xagee u socotaa markaas waxay dhado mee heblaaya waxay la iiga soo diray naa weligaa magaalada kamaada bixin meelena maada aadi jirine xagee baa u socotaa may habar mee heblaaya wax la iiga soo dira waay maamadii way soo orodee waxay imaatay gabadha hooyadeeda u imaatay gabadha hooyada markuu imaatay waxay gabadhaada heblaaya ahayd aawe gabadhaydii haa ma aqaano waa joogtaa xaafaday joogtaa naa gabadha xaafadda ma joogtee magaalada meel ka baxsan oo fog aan gabadhaada kusoo arkay waxaana sii daba socday labadii gabdhood noocaasa sii daba socday oo maxay doonto waaye ma aqaano gabadh wiil la dhashay ayada iyo wiil abtigeeda laga daba dira waxaa la dhahay gabadhaasayto naagahaasay raacday naagahaasna way shirqoolayaan naaga fiican ma ahan ilaa waa in gabadhaasayto lasoo qabtaa oo maxaan ku dhahay laga soo reebaa naagahaas wiilkii ayada la dhashay iyo abtigeed gaariya shidaal ku shubteen waa ka daba tageen gabadhii iyo naagihii isla sii socdo oo meel isla sii socdo oo gabadhaanuna aysan ogeynba naagahan inay shirqoolayaan naagahan inay shirqoolaan ay soo dhibaateen ay magaalada uga baxsadeen baa laga daba imaaday sirma qabasaa baa biyo ceshay maal dhihino gabadhi baa laga daba imaaday waxaa leenahay xagee u socotaa ama aniga meexaan u socdaa aroosaan u socdaa arooska intuu yaalaa meel hiblaayo naa arooskaagii aabaha cuna laabo waay ma laabanayo arooskaasa ilaaba aada abtigeed iyo walaalkeeda soo qaftay ila beerkay ka tumeen magaalada dib loogu soo ceshay iyadoo fartay qaada gabadhii lasoo jebiyey in maxaan ku dhahay la dilo oo faamilkeeda uu dilo damcan
waxaa ka xun oo ka xumaan lahayd in lasoo kufsado, lasoo furxumeeyo, lasoo dhibaateeyo. marka in familkeeda uu dilo oo abtigeed iyo walaalkeed ay soo qabsadaan, markaas waxay u noqonaysaa ayada wanaagay u noqonaysaa. gabadha waa lasoo keenay, waa lasoo garaacay, magaalada la keenay, waa lasoo celishay. markaas kabacdigeed ahooy waxaa loo sheegay oo laga dhaadhiciyey oo warkii loo sheegay in naagaha kanu ay rabeen inay farxumeeyaan, aroos uusan jirin, meeshaas dhalinyaro loogu diyaariyay, magaceeda lagu dheeli rabay, si xun loo dhibaateyn rabay. asxaabay maxaan ku dhahay sheekadan intaasay ku eg tahay. maxaan ku dhahay wixii ra'yi committee noogu soo dhig, xasidnimada ma fiicino. laakiin wallahi bil aadan la yaabo adiga ninkayga duu naakala magaceeda igu yar xanuun ku dareemi la been inii ma sheegaaye, naakala magaceeda ma dul qaadan kara. haddana soo inta qof bil aadan aan dhibaateeyo weligay ma ku fakirin, ma jeceli. wixii ra'yigaaga committee igula wadaag. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. inta sheekada mid lamid ku kulmi doona. Bye bye.